ما أحلك يا رمضان، أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى. يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركوبة الله سبحانه وتعالى يا مهد له عافيمات كنسي إنه نتقي نمعين كيس بدن نعمة الإسلام ونعمة العافية. الحمد لله بن الله ناي برنامج كنا وبرنامج كني نسوا ذي دنيارتا كل ما قحبوا ما بحين دنيارته وما نيري نحن رجينا إن ما قصوا بحسان إن شاء الله أنت مقال دعوانيسا تكون تبين ولو ذاكتان قيبتنا وحين كوا هذا إن شاء الله نسي شيء وتواصل على برنامج إن شاء الله أو ها دنيارتا إيو نوعية مركي dugsiga wax baranayaan kan waxaynu ku aadi doonaa insha Allah saddexdii nooc aynu kala saarnay marka ay ka baxaan dugsiga ay xaaladda ay galayaan xaaladda dugsiga ay ka baxaan ay galayaan jaamacad bal insha Allah sidee ula kulmaan saddexdii nooc aynu soo sheegnay haddaynu si yar oo guud soo marnay insha Allah taala shalay barnaamijkeenu ka hadlaynay wuxuu ahaa qaybaha ay dhalinyartu kala baxdo marka dugsiga ay ku jiraan waxaynu soo sheegnay inuu ka koobad ahaa mid waxbarashada ku dadaalaya kala wadna mid dhexdhexaad ah kasta xadina mid waxbarashada ku dadaalin intaas hadda waxaynu kalna insha Allah barnaamijkeena haddaynu ku bilowno ka koobaad oo ah qof waxbarashada ku dadaalaya arday waxbarashada ku dadaalaya markiisii hore oo dadaal fara badan sameeyay intuu ku jiray dugsigiisa hoose ama dhexe ama sare ardaygaas marka uu ka baxo dugsiga ee uu jaamacadda tago caqabad fara badan kala kulmo caqabadaad fara badan maxaa yeelay wuxuu soo bixin karay dadaal dheeraad ahaa intuu dugsiga ku jiro soo bixiyay uu soo dadaalay hadduu ahaa arday si fiican u dadaalayna jaamacad wax dhib kuma yeelanayso khaasatan waxa isaga maxayna caqabad weyn ay oran karo aniga marka fikirkayga ka soo dhiman karta waxa weeye wax caqabad ah in uu la kulmayo dad kala chat ah oo ka kaliya iskoolo gobollo qofsan noqonayaan oo hadduu arday si fiican u dadaali jiray oo kaalmo hore gali jiray dad kale waxa jira iyagana saas oo kale soo haastiisaas oo kale oo soo dadaali jiray marka isagu wuxuu kala kulmayaa caqabada inta mooyaane oo isleeyahay raggan la dadaal wada kaalimaani kaaga horreyn inay waxyaabo kale maxay activities kaaga horreyn caqabad taam ay noqonaysaa anu fikirka ahaantayda qofka wax soo dadaalayay caqabad badan kalma kulmay maadaama waxa uu arkayaa jaamacadda markuu galo waxa uu sii kordhinaya dadaalkiisa marka uu level ka sareeyo tago jaamacaddii tagana dadaalkiisu kasii badanaya oo aad buu kasii badanaya intii secondary-na soo tababar qaatay imikana kasii badanaya kaas waa mid haddaynu u galno ka dhexdhexaadka ahaa isagu markaa unba indhahu u yar furmayaan indhahunba u furmaya soo marka hore waagu u bariyesanaa laakiin indhahunba u yar furnayn marka indhaha isa u yar furmaya markuu arko uu qiimeeyo difference-ga u dhaxeeya iskoolkii iyo jaamacaddii iskoolkii markuu yiraahdo niyo maalintii shan xishad qaadanaysay macallinkii wuxuu dhigayay sabuurad khaas u dhigayay oo marka la isku geeyo macalinkaas shanta macallin oo soo galay marka la isku geeyo waxay u dhigaan hal chapter may noqonin markuu yiraahdo niyo taasi iskoolkii bay ahayd jaamacad markuu yiraahdo maalintiiba 3 chapter baa la dhigaya ama 4 chapter ama 2 chapter buu fikiraya ku leeyahay niyo hawshu way isbedeshay marka isaga indhaha u furmay marka wuxuu la imanaya inuu isbedelo hadduu yahay mid sax ah uu isbedelaya xilliga uu dadaalaya dadaal fara badan sameynaya markuu isagu runta u cadaato hadduu yahay mid sax oo uu dadaalkaas buu ku wadayaa saawna jaamacaddii u gudbaya oo dadaalkaas buu ku sii wadaya kaasina waa mid oo ka dhaxawayaan caqabadaha kala kulmay waxay soo inay markuu jaamacadda galoon ay indhaha u furmaan oo arkay isbedelkii fara badan saadi la fahantaan qodobkan kan dhaxay xagu ka yimiday ilaa waad qof isweydiin kara kan dhaxay wax ku ka imanaya dadku laba buu kala baxay iskuul hor jooga iyo meelaha waxbarashada mid wax bartay iyo mid aan wax baran ka dhaxay waxa weeyo mid dadaali jirin laakiin waxbarashiisa iska watay dadaal baa ka maqnaa dadaal iyo inuu yaxay waqti badan galiyo waxaan akhrinay iyo waxaan baranayo marka dadaalku waxa uu imanaya aniga fikir ahaantayda marka uu meel sareysa u tago sida jaamacadda kala kaasina waa mid aynu kaga soo gudbina kaana inta haddaynu nimaadno ka u dambeeyo ah mid aan dadaali jirno waxbarashadana nici jiray waxbarashadan dhan ba ka lahayn dooni jirina kaasina marka jaamacadda la tago unbay isagana waagu bariya marka uu leeyahay waagu bariya marka hore mugdi buu ku jiray iska ciyaari jiray ruwaayad uu sameyn jiray wuxuu doono intuu secondary ku jiray waxma baran jirin laakiin marka uu arko jaamacaddii uu tago
uu arko goobtii goob ka duwan, marka uu arko asxaabtii isla ruwaadin jireen oo meesha joogin, waa uu indhaha u furmaya, waa waaga u baryaya. marka uu arko galaaskii galaas ka badan oo dad badan wada joogaan, isagana xaggaas waxaa ka imanaya isbeddel kale. marka uu arko macallinkii afka lagu taagayna oo haddii macallinka aad laba hadashidba aad eris tahay, xaggaana waxbaa uga soo imanaya. markuu intaasoo dhan isu geysto ayuu waxa uu ka fikirayaa inuu jaamacadda iskaga baxo, uu iska daayo hawlihiisa kale iska qabsado, hadday tahay inuu shaqaysto iyo hadday tahay inuu ba ka fikiro dhoof, oo uu yidhaahdo maalin kasta fiisa soo baxaya Kanadaan u dhoofaya, hawlahaas oo dhan ay maskaxdiisa kusoo dhaca. marka xaggaas buu ku luminayaa jaamacaddiina, waqtigii badnaa uu soo qaatay dugsigii iyo wixii badnaayee uu soo bartayna xaggaa uu kaga tegaya. haddayna soo qaadan hal yaro tusaale isla fahno, waalidkeenu badanaa saynu ogsoonahay inta dambe mooyaane de inta hore waalidkeenu waxba ma soo barin. sababtu tahay waqtiyada waxay soo gaadheen waalidkoogii hooyadood iyo aabahood aanan waxba soo barin, ama waqtiya waxay soo gaadheen dagaalo iyo colaado lagu jiro. sababtaas waxa ay qabtaan howlaha yar ee basica ama ee bulshada ah ayay ka shaqeeyaan badanka waalidkeenu. waa laisla wada ogyahay taasi oo laisku waafaqsan yahay. waxaa nasiib darro ah qof la geeyey iskool dhowr iyo 10 sano dhiganay, 12 sano ku dhowaad, marka uu tagay jaamacaddii iskaga baxay bajaaj eryanaya. kuma qalanto, waxaad dhiganaysay 12 sano khasaarisay oo lacag lagaa bixinayay oo xoog iyo muruq lagula daba taagnaa, break iyo buugaag lagu siinay. marka inaad la timaado waa shaqo bashaashtu, waa shaqo hawshan ma fiicno. dhalinyarteeda saabaan ku dardaarminaa, ma fiicno, kuma qalanto. sababta ay waalidkeenu ugu qalmay inuu hawshaa qabto maadaama waalidkoogu waxba ma soo barin, intii dhashay waxba ma soo barin. adiga waxbaa lagu baro, buugaag baa lagu siiyo, waqti baa lagu siiyo, break baa lagu siiyo. macnaa markaa leedahay bajaajtu waa shaqo la shaqaysto, waa la shaqo la shaqaysto, waa caadi, waa la ogyahay, waa lasoo ogyahay, waad ka shaqaysan kartaan, wax dhibi kama jirto. laakiin marka lagu eego adiga kuma qalmayso. intaa haddaynu kusoo dhaafno saddexdaa nooc intaan ba u kala baxayaan insha allah. fikirkayga gaab intaa kusoo koobiyey, intaaba insha allahu tacaala ku joojinaynaa. badanaa barnaamijyadaan soo diyaarinay waxaan kasoo diyaaraa buugagan soo akhriya, ama carabi ahaato ama english ama soomaali. insha allah deetina buug kastoon soo diyaariyo descriptionka inala wadaagi, ama commentiga xagga commentiga inay soo dhigayso, qof walba in u kala faa'iidaysano. intaa ayaynu barnaamijkeena kusoo koobaynaa insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.